waxaan rabnaa dib u cusboonaysiin akhlaaqda maandooriyaha iyo wax kasta oo xun oo bulshada ka xun bulshada dhexdeeda ku xun qofka muwaadinka naftiisana u xun innaga shaqada ku jirnana inoo xun inaynu iskaga tagno intaan u baahanahay intaas way waxaad ogtihiin inta hadda aad ku jirteen xeradan aad ku jirteen tababarka ku jirteen waxbarashadan aad qaadanayseen waxa ka dhacaya magaalada waad la socotaan waxaan la dagaalamaynaa maandooriye oo ogtihiin dhibta uu ku hayo dadkeena iyo dalkeena waxaan go'aansanay inaan ka suulino ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka booliska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye noocu dooni ha ahaado inayna ciidanka booliska ayna ka mid ahaanin oo bannaanka ooga saaraan iyo talis ku go'aansaday waxaa kale oo aan go'aansanay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysato gadda beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno waxaan la dagaalamaynaa nolosha qofka muwaadinka ah aynu ilagu adeegno iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ilagu ku jirno waxa khatarta ku ah inaynu ka hortagno soo saas ma intaas waxaa noo dheer noolaanshaha bulshada aanu adeegno qaabkan oo la noolaan lahayd muuqaalka askarnimo siduu ekaan lahaa ayaa noo dheer iyadana inaan la dagaalano oo soo celino sharafka iyo qiimaha uu ciidanka booliska uu leeyahay ama askariga Soomaaliga uu leeyahay dadkiisana uu leeyahay